kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii sportiga Universal TV oo xilligan idinkaga imaanaya studio-ha magaalada Nairobi. Magacaygu Ibrahim Gedow qodobada wararkii sportiga xilligan ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha January oo xalay la soo xiray guud ahaan ciyaartoydii la kala iibsaday maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda deadline day-ga iyo guud ahaan bisha January ciyaartoydii ugu waaweyneed ee la kala iibsaday. faahfaahin badan oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaynu ku eegi doonaa wararkii sportiga ee maanta iyadoo ugu waaweyn tahay kooxda kubadda cagta Chelsea oo sameysay ganacsi maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. kooxda Chelsea ayaa la soo wareegtay xidiga Juan Cuadrado oo dhashay dalka Colombia oo ka tirsanaa kooxda Fiorentina kaas oo ku kacay 23.6 milyan oo pound lacagtaas oo gaari karta 26 milyan oo pound. xidigan Cuadrado 26 jirka ah ayaa kamid ah ciyaartoydii ugu fiicneed ee koobka adduunka ee xulka Colombia u ciyaaraysay waxaana goor dambe xalay uu si rasmi ah heshiis ugu saxay kooxda kubadda cagta Chelsea. waxaana dhinaca kale kooxda kubadda cagta Chelsea ay iska iibisay xidigoodii Andre Schale oo ku biiray kooxda Wolfsburg ee dalka Jarmalka 22 milyan oo pound ay ku iibisay. sidoo kale Mohamed Salah ayaa amaah ugu biiray kooxda Fiorentina oo qayb ka ah heshiiska Juan Cuadrado ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Chelsea. guud ahaan 130 milyan oo pound ay qarash gareeyeen kooxaha dalka Ingiriiska suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha January taasoo la sinman January hore 2014 lacagihii la qarash gareeyay waxaana ku dhawaad ay gaari lahaayeen rikoorka lacagaha ugu badan ee bisha January oo ah 225 milyan oo pound oo 2011 kooxaha Ingiriiska ay qarash gareeyeen. kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda aad ugu mashquulsaneed shalay oo maalintii ugu dambeysay iyadoo 4 xidig la wareegtay kooxda tababaro Alan Berdo. waxay si rasmi ah u qaateen xidiga Wilfried Zaha oo Manchester United ka tirsanaa kaas oo amaah kula joogay Palace heshiiskiisana rasmi laga dhigay. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa xidiga kale waaweyn la soo wareegtay hase yeeshee heshiiskii ugu dambeeyay ayaa waxaa gaartay kooxda Hull City oo goor dambe oo saqdi dhexe ee dalka UK la wareegtay xidiga Lokomotiv Moscow wararka ugu ciyaara ee Dame Indoye. 13 ciyaartoy ay Premier League la kala wareegeen shalay oo kaliya oo ahayd maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyadoo guud ahaan 35 ciyaartoy ay kala wareegsadeen amaba ay la wareegeen kooxaha Ingiriiska bisha January. waxaana horyaalka Ingiriiska uu yahay horyaalka lacagaha ugu badan isticmaalay bisha January suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyadoo horyaalada kale ee Spain, Talyaaniga, Jarmalka iyo Faransiiska aanay sidaas suuqa ugu lug yeelan bisha January oo xalay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda gabi ahaanba la soo xiray. waxaana lacagihii la isticmaalay guud ahaan 50% isticmaalay kooxaha Premier League ee horyaalka dalka Ingiriiska. 45 milyan ayay shalay oo kaliya isticmaaleen kooxaha dalka Ingiriiska taasoo ka badan sanadkii hore 35 milyan oo pound ahayd. Manchester City, Chelsea iyo Arsenal ayaa ahaa kooxaha ugu badan ee lacagaha badan qarash gareeyay bishan January horyaalka dalka Ingiriiska waxaana 50% saddexdaasi kooxood ay isticmaaleen lacagihii guud ahaan horyaalka dalka Ingiriiska bishan January la isticmaalay. horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A ayaa 50% lacagaha Premier League ay isticmaaleen ka yar isticmaale waxaana 65 milyan ay isticmaaleen guud ahaan. Isbaanishka ayaa isagu aad u yara halka Faransiisku ay 32 milyan oo pound oo kaliya ay qarash gareeyeen bisha January. heshiiskii ugu yaabka badnaa ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda gaar ahaan maalintii shalay ahayd waxaa gaartay kooxda Manchester United oo xidig da'yar amaah kaga soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Bolton. United ayaa la soo wareegtay xidiga da'da yar ee daafaca bidixda ka ciyaaray Andy Carroll kaas oo amaah kula joogi doona kooxda Manchester United inta ka harsan xilli ciyaareedkan. sidoo kale Darren Fletcher oo Manchester United ka tirsanaa ayaa ku biiray kooxda West Bromwich Albion xalay kaas oo si xor ugu biiray horey waxa ugu dhawaaday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee West Ham oo heshiiskiisii uu burburay. sidoo kale xidiga Ryan Bertrand oo Chelsea ka tirsanaa Southampton amaah kula joogay ayaa heshiiskiisa laga dhigay mid rasmi ah oo joogto ah oo Southampton si rasmi ah u iibsatay. Tottenhamna waxay amaah Aaron Lennon ku siisay kooxda Everton halka Robert Hath uu Stoke ka tagay oo si amaah ugu biiray kooxda Leicester City. kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa la soo wareegtay xidiga Dele Alli oo ah xidig ka ciyaara heerka saddexaad ee kooxda MK Dons oo 5 milyan ay ku qaadatay balse amaah kooxdaasi kula sii joogi doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan. xidiga Southampton ee Bertrand waxaa kula soo biiraya xidig kale oo lagu magacaabo Philip Uzdrich oo macallin Ronald Koeman uu ka soo qaatay
kooxda Benfica ee dalka Portugiiska. heshiiskii ugu qaalisanaa bisha January waxaa gaartay kooxda Manchester City oo horey ula soo wareegtay Wilfried Bony oo Evercoast u ciyaara kana tirsanaa kooxda Swansea City kaas oo ku kacay 28 milyan oo pound. waana ciyaaryahanka ugu qaalisan bisha January kooxaha dalka Ingiriiska ay iibsadeen iyo guud ahaanba kooxaha qaranka Yurub. Arsenal ayaa sidoo kale horey u dhameysatay ganacsigeeda January iyadoo aan soo gaarin maalinta ugu dambaysa waxaana horey 12 milyan oo pound ula wareegtay xidiga Gabriel Paulista. sidoo kale xidig da'yar oo Bilek lagu magacaabay 2 milyan Arsenal horey bisha January ugu iibsatay. kooxda Leicester City waxay jabisay rikoorkeeda iyadoo bisha January xidiga Andre Kramaric ku qaadatay 9 milyan oo pound. waxaana guud ahaan ay kooxaha Ingiriiska u muuqanayaan inay ahaayeen kooxaha ugu badan ee maalinta ugu dambaysa suuqa ku lug yeeshay. horyaalka Spain ayaa suuqa iibsiga ciyaartoyda la soo xiray jimcadii la soo dhaafay halka shalay oo dhan Jarmalka oo kaliya uu Andre Schale ku biray. guud ahaan kooxaha kale ee Yurub ay ka aamusnaayeen suuqa iibsiga ciyaartoyda. kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyadoo horey laba heshiis oo amaah u qaadatay oo kala Lucas Podolski iyo Sheridan Shaqiri oo ka kala tirsanaa Arsenal iyo Bayern Munich. kooxda Real Madrid bisha January 2 ganacsi oo ay sameysay ayay ku qaadatay xidiga Lucas Silva iyo Odegaard oo xidig da'yar oo dalka Norway u dhashay. guud ahaan wararkii Sport Universal TV xilligan waa naga intaas dibadda kulmi doono Ibrahim Gedow waa loo idin leh manala.